waan idin salaamay asxaabta qaaliga ee ku xidhan English with Naja. Asxaabi maanta waxaanu si kooban u qaadan doonaa ama aan tusaale ka bixin doonaa past, present iyo future. Qalinkaaga iyo buugaaga soo qaado aad ayaad u mahadsantahay. Channelkeena like gare, subscribe tan inoo saar asxaabta baan u share gare. Are you ready? Let's get started. I taught you. I told you waxa weeyaan waan ku baray yani waan ku soo baray waa wax la soo dhaafay. Tusaale ahaan I told you how to read when you were young. Waxaan ku baray sida yani wax loo akhriyo markii aad yarayd. I teach you. I teach you. Waxaan ku baraa. Yani mar kasta waxaan ku baraa. Tii horena waxay ahayd waxbaan ku baray. Tan waxbaan ku baraa. I will teach you. I will teach you. Waan ku bari doonaa. Yani waxaan ku bari doonaa. I will teach you English. Waxaan ku bari doonaa English. Yani waa wax soo socda. Waxaan soo aragnay marka intaan ku soo aragnay wax soo socda, wax taadan iyo waxaan soo dhaafnay. I made decision. I made decision. Waxaan gaaray go'aan. It means mar horaan go'aan gaaray. I made decision. I make decision. I make decision. Waxaan gaaraa go'aan. Yani markay wax igu yimaadaan oo kale ama wax igu dhacaan waxaan gaaraa go'aan. I make decision. I will make decision. Tanina waxay ka hadlaysaa wax soo socda iyaduna, okay? I will make decision. Waxaan qaadan doonaa go'aan. Tusaale ahaan qofaa kugu yidhi, and what will you do when the police come to your house? Maxaa samayn doontaa marka booliisku gurigaaga imaado? I will make decision. Go'aan baan qaadi doonaa. Go'aan baan gaari doonaa. Marka waa wax soo socda, okay? He drove a car. He drove a car. Wuxuu watay gaari. He drives a car. He drives a car. Wuxuu wataa gaari. He will drive a car. He will drive a car. Wuxuu kaxaysan doonaa gaari. They slept early. They slept early. Waxay seexdeen goor hore. Okay, tusaale ahaan qofaa ku buuri, where are the children? Carruurtii meeday. Tusaale they slept early. Goor hore seex. They sleep early. Okay, they sleep early. Waxay seexdaan goor hore. Yani it means kan waa present, waa present symbol. Present yadan aan soo qaadanayna. Waxay seexdaan goor hore. Ma fahantay? Mar kasta weeyaan habeen kasta waxay seexdaan goor hore. Present symbol-ka horena soo baranay waxaa lagu yaqaanaa habitual action ama ficil soo noqnoqda. Mar kasta, bil kasta, sanad kasta hore noo soo dhigo. Marka they sleep early. Waxay seexdaan goor hore. They will sleep early. They will sleep early. Waxay seexan doonaan goor hore. The doctors said to me, stop smoking. The doctor said to me, stop smoking. Dhakhaatiirtu waxay igu dhahdeen jooji sigaarka. Waxaan malaynaya inaad fahamsantihiin ficilada isbedbedelaya tusaale ahaan the doctor said waxay igu dhaheen dhakhtaradu the doctor say waxay igu dhahdaan the doctors will say waxay igu odhan doonaan okay ka grammarka mar kastaad baratid waa mar kastoo aan saxsan yahay hadalkaagu. The doctors say to me, stop smoking. The doctors say to me stop smoking. Dhakhaatiirtu waxay igu dhahaan jooji sigaarka. It means mar kastaan dhakhaatiirta la xiriiro ama u tago waxay ugu dhahaan hey welma sidii baa tahay jooji sigaarka. Yani mar kasta waxa weeye yani waa wax soo noqnoqonaya igu dhahaan. The doctors will say stop smoking. The doctors will say stop smoking. Dhakhaatiirtu waxay odhan doonaan jooji sigaarka.